بسم الله الرحمن الرحيم maadaama qaacidadii soo burufnay section 1.1 sum and difference identity for cosine example ku horeyn ka shaqeynay waxaa imaadaa page ka saddexaad note ku qoran note kaasna ablo xirna ka sheegno note kaas wuxuu ka hadlayaa waa note aad muhiim u ah convention identity kala halila convention identity convention identity wax kale ma ahan marka bal waxa la fiirsaa sin iyo cos ku marka waa cosine kama da marka koodan wax kale ma complement waa complement dhamaystire tamam dhamaystire marka sin iyo sin dhamaystire waa marka Soomaali marka waa sin ki dhamaystirihiisa complementary angles markii laga hadli jiray fasalka sagaalaadka iyo fasalada lagu qaadan jiray waxa la jiray waa labada xaglood waxa kale isku buuxiyo 9 waxa la jiray complementary angles xaglaha 9 isku buuxiyo la jiray complementary angles marka waxa marka sin iyo sin dhamaystire tangent iyo tangent dhamaystire tangent waxa dhamaystire cotangent ama cotangent sec ama secant iyo cosecant lix ab wana soo fahantaa lix ab marka waxa waa sin sin dhamaystire tangent iyo tangent dhamaystire secant iyo secant dhamaystire marka cos waa dhamaystire marka labada waxa laga wada dhamaystire waxa laga wada labadaas xaglood waxay isku buuxinayaan 90 tusaale fudud example tusaale sin 20 waxay la mid tahay 90 wax ka dhiman waxay la mid tahay cos waxay la mid tahay cos 70 sin 20 waxay la mid tahay cos 70 sababta kula mid tahay maxaa labadaas wadarto xaglahooda wadarto waxay tahay 9 xaglahooda maxay tahay wadarto waxay tahay 9 oo 20 iyo 70 dil isku dar maxaa waa 90 sadarada calculator geliso sin 20 iyo cos 70 geliso waa isku mid same waa soo kale waxa isku mid ah sin 5 iyo cos 85 sababta maxay tahay labada marka dhamaystir 9 isku buuxinayaan waxa isku mid ah sii wad sin 1 iyo cos 89 saas ku haysa waxa isku mid ah sin 45 iyo cos 45 sababta maxay tahay 9 isku buuxinayaan saad raadad complementary angles waxa la yiraahdaa waxa kale isku buuxiya 9 isku buuxiya inta saxan marna cadda sin kan hadda mithaalina balka isha waa isweerin kartaa oo coska soo hormarin kartaa tangent cotangent waa la mid secant cosecant waa la mid intaas isku mid ah bal ma haddaan qaacidina fiir qaacidana sameynana qaacida waatana haddii coska laga jaro haddii cos 90 laga jaro angle laga jaro waxa soo baxay sin angle kaas tusaale fudud kan la mithaal soo qaad hadaa sin 20 aad haysato cos 90 on ka jaro 20 wuxuu la mid yahay sin 20 waa isku mid sin 20 okay cos 90 hadii 20 laga jaro waa 70 cos 70 iyo sin 20 waa isku mid waa kana inta ku cadeen cos 70 iyo sin 20 waa isku mid marka dhammaan waa noocaas hadii aan coska 90 ka jaro angle-kaas angle-ki laga jaro soo baxay oo laba markii la sii yaray inta soo imaanaysa sin 90 hadaan fiita ka jaro cos soo baxay kuwan waa la mid saas la mid marka ina xamal saas cadda marka kan maxaa ka faa'iideysan waxay faa'iido ku tahay waxaan soo darad aan ka si fiican oo soo hadalno soo buruufnay soo cadaan ka soo hadalay special angleski aan soo cadaynay qiimayaashooda waxay la fiirsan marka waxa laga rabaa inaad wax badan meesha ka fahanto marka waxaan xasuusanay sin 30 waxay la mid ahaan jirtay half okay sidaas la mid ah cos 60 waxay la mid yahay half half kala mid noqdo ina fahanto marka in convention identity oo haday waxaan ku sheegnay waxaan dhahaynay sin 30 iyo waxa la mid ah cos 60 waa isku mid sababtoo labada 90 isku buuxiyeen waxayna la siimiyay qiimaha half la mid yihiin waana soo fahantaa marka sin 30 iyo cos 60 waa isku qiimo waa same waxa isku kala qiimaha sin 45 iyo cos 45 sababtoo labada marka isku dar waa 90 cos 45 waxay la mid jiraan radical 2/2 la mid jiraan waxa isku qiimaha cagsiga sin 60 iyo cos 30 mid ka san wuxuu la mid jiraa radical 2 radical 3/2 waxa isku qiimo soo cadeynay sin 0 iyo cos 90 mid walba eber loo mid jira ma soo cadeynay introduction-ki waxa isku qiimo sidoo kale sababta labada 90 isku bixin isku dar waa 90 cos 0 iyo
sin 90 waa isku qiimo oo mid kasta waa 1 mid kasta waa 1 marka coefficient identity saas ku anfaca marka haddii aan dhan taqaana coska haddaan ka cos 90 haddaan ka jaro angalkaas angalka laga jara soo baxay marka tili si fudud isku jawaab imaanaysa marka saas la mid dhammaan waa isku noocaas dariiqadaas ama processka raacaysa bal example marka aragna example-da oo ku xalinay coefficient identity arag example marka example 1.2 wuxuu sheegay find one value of theta or x that satisfies each of the following waxa laga rabaa qiimo hal qiimo uu leeyahay x iyo theta ina soo saarana laga rabaa marka waxaan sanaa a b iyo c aan sanaa saddexaan sanaa waxaan soo baranay si fiican soo baranay oo ka soo hadalay coefficient identity waan ka soo hadalay marka inagoo coefficient identity ka faa'iideysanayna example qaybta ugu horeysa aan soo qaadan waxaan sanaa cot theta ina la mid tahay tan 25 degree ina la mid tahay tan 25 degree kana furfuri karaa oo kaal maxana la sheegay la ekeysiin karaa qiimo la mid markaan ka furfuro kan waxaan dhigi karaa wuxuu ka imaaday haday markaan aan sharaxaynay sheegay coefficient identity wuxuu ka imaaday tan 90 laga jaro theta waxa la mid jirta cot la mid jirta laga jaro cot marka inta waxaan ku bedeshay inta waxa la mid tahay marka intaas ka soo qaada marka tan 25 marka kan isla bixi ama labada isla ekeysi kaarta meesha waxa ka soo haray marka 90 labada angle isla ekeysi 90 laga jaray theta waxa la mid tahay 25 ani waxa laga rabaa one value of theta or x value of theta marka theta waxa la mid noqonaysa 90 haddaan 90 laga jaray 25 90 25 ka jar waa 65 degree marka 65 degree marka caqliga ku fahmi karto oo waxaad dhigi kartaa fiir haddii tan laga jaro number laga jaro 25 keenay haddii may 25 kan laga jaro waxa soo baxaya 65 oo haddaad adu maxaa sameynaa waxa way leen mootada waxaan dhaanay tan 90 laga jaro theta waxa la mid tahay number la mid tahay theta ma 25 haddii 90 ka jarto waa 65 nasra sameyn kartaa oo adigoon xalin baad hore ka soo saari kartaa qaybta asaasan ku xalinay qaybta b da oo b waxa sanaa sin theta ina la mid tahay cos minus soddon okay kana furfurana markaas le kaas sin theta waxa la mid jirtay markii laga hadlayo coefficient identity waxa la mid jirtay cos 90 laga jaro theta inta la mid jirtay intan sayta usoo qaad marka cos minus soddon angalada isla ekeysi marka inta waxa ka soo haraya 90 minus theta wuxuu la mid yahay minus soddon marka theta waxa la mid noqonaa marka theta hadaan wareejiyo wuxuu noqonaa 90 plus soddon okay theta marka waxa la mid noqonaysaa 90 dii soddon lagu daro waa 120 degree theta la mid noqonaa 120 value of theta waa haysta marka waxa laga rabaa one value of theta or x kana ugu dambeeya ku soo haray kana ugu dambeeya intaas ka tirayna kana ugu dambeeya c da waxa loo dhahay c cosec 3 by over 4 cosec 3 by over 4 waxa la mid tahay sec x maanta waxa lagu siiyay in radian lagu siiyay marka waxa laga rabaa one value of x laga rabaa kii labadii hore one value of theta soo saaray soma kana furfurana marka kan sayta soo qaado cosec 3 by over 4 cosec 3 by over 4 waxa la mid tahay kana wuxuu la mid yahay kana waxaan furfuri karaa cosec maadaama by ku cabiran yahay 90 waxa ka dhigtaa by over 2 minus x kana taa furfuri karaa bas labadan isla ekeysi marka 3 by over 4 wuxuu la mid yahay by over 2 laga jaro x okay waxa sameyn kartaa marka x ka iska dhanka keen 3 by over 2 dhaga wareeji oo waxa dhigi kartaa x wuxuu la mid yahay by over 2 kana daan wareeji wuxuu noqonaa minus 3 by over 4 okay kan marka wuxuu noqonaa hooseeyaha marka LCM kooda wuxuu noqonaa numberka weyn oo 4 ah 4 hadaan labo u qaybiyo waa labadii by hadaan ku dhufto 2 by minus 4 hadaan 4 u qaybiyo waa hal halka hadaan ku dhufto 3 by waa 3 by okay marka x wuxuu la mid yahay hadda sareeya kala jar marka 2 by laga jaray 3 by waa minus by hooseeyana 4 minus by over 4
intaas laga rabaa bas example kuna intaas ku egyahay noogu xiga example ka 1.3 example 1.3 waxaa loo dhahay right cos 180 minus theta as a trigonometry function of theta only waxaa laga rabaa trigonometry function qiimaha theta only inaas qiimaha theta inaad soo saarta laga rabaa marka kan waa iska very simple waa wuxuu ku fudud yahay qaacidooyinka dhammaan xifdisan oo naqaan maanta ku shaqeynayna cos 180 laga jara theta kan marka wuxuu la mid yahay cos a minus b la mid yahay cos a minus b marka si loo furi jiro waa taqaan cos a cos b plus sin a sin b cos meel walba a 180 haysta meel walba b ana theta haysta marka wuxuu noqonaa cos 180 lagu dhuftay cos theta plus maadaama kan minus ya plus sin 180 sin theta waxay la fiirsaa marka cos 180 wuxuu la mid ahaan jiray haddaan introduction si macnaha soo sharaxnay trigonometry markii cos 0 iyo cos 360 la mid ahaan jiray maadaama uu 180 oo meeshan dhaco oo negative part of x axis dhaco minus 1 noqon isaga marka cos 180 waa minus 1 minus 1 hadaa theta ku dhufan muxuu noqonaa minus 1 haddaan cos theta ku dhufan muxuu noqonaa minus cos theta waxaa imaada waxaan dhahnay saan introduction kusoo sharaxnay qaybtan x axis ka dhan sin waa 0 qiimo ma laha marka sin 180 maadaama x axis dhaca waa 0 haddii la dhufto sin theta waa 0 qaybtan waa wada baxaysa jawaabtan waa intaas waxaa ka jawaabtan laga rabaa minus cos theta intaas laga rabaa marka waxaa u qortaa function of theta only laga rabaa marka minus cos theta waa jawaabta. Assalamu alaikum.